xalay waxa rag qaarkii weydiiyeen timaha ma la talaali kara haday hiro ku gasho oo hada hawlta lagu aafaysan yahay Turkiya loo aado ogtiin baan u malay Turkiya bariyahan ka furan yahay mashruuc marka haday baashu ku geyso madaxu ku xirto timihi ma la talaalan karaa masaladaas la isweydiinaya oo la soo celcelinaya waa laba qaybood masaladu timaha haday buudaan hiro ku gasho tima kale ama shay kale laguma talaali karo madaxaada tima nin kale leeyahay ama cayn gari meeshan yaal ama ruux kale timihii intii bidaartaada iyo hiiradaada lagu talaalo ay tima ku noqdaan lama ogolo waa xaraan oo wasliga aad soo marteen way nabigu lacnaday ilaahay lacnaday subhanahu wa ta'ala ay soo marteen taasi marka iyadu ma banaa suurada waa dhamaatay suurada labaad waxa weeye timahaadii madaxaada qayb kamida ku yaalay intii la soo qaado meesha ku banaanaatay ma lagu buuxin karaa leenta ma way ogtihiin oo qadaadka dambe timuhu kama dhamaada qadaadku asoo haday hiira walba ku gasho in cudur kala ku xiraba mooyee hiiradu inta badan qadaadka dambe ma gaadho timihiisana ma fujin karto ma aqaan wuxuu qaba qadaadku dhaforuhuna inta badan way joogaan marka qadaadka dambe timaha intii laga soo qaado jeegada dambe ama dhaforada iyo dhabanada meeshan bagaaliyaha ku banaanatay qaybta kore ma lagu buuxin karaa taasa hadda suurada labaad taa inay banaan tahay baa loo badan yahay qoliyaha mucaasiriinta hadda jooga inay banaan tahay ayaa loo badan yahay maxaa yeelay waa untimahaadi bidaartuna waa min baabi daa ilaaj way hawsh waa ilaaj waa isdaaweynaysa aafa ku gashay oo ku buurisay weeye inta timaada ka baaqiga intii la soo qaday in lagu buuriyo dib malaha waa min baabi ilaaji wad-dawaa waxay la mid tahay adoo dab intuu ku qabsada jirkaada qaybo kamid hilibkii ka tagay oo hilibkii meel kale laga soo gooyo maqaarkii meel kale la saaro bay la mid tahay sankan oo lagu goosto oo bowdintii hilib laga soo qaado san lagaaga dhigo oo lagu qurxiyo la mid tahay taasi dib malaha waxay hoos galaysaa saddex nin aqrac iyo acma iyo abar soo garanaysa ninkii timihu ka buubee ee malagu markuu neefka fiicnaa siiyay alla u soo celiyay muxuu yiri waxaan ilaahay ka baryahayaa inuu ii soo celiyo timahaygii kadibna aan timo wanaagsan yeesho dadkiiba ay qashimaystay waa laga cararay timihii baa loo soo celiyay Soomaa طيب marka waa min baabil ilaaj wad-dawaa waana cudur bidaartu saadarteed wadaadka reer macallin wuxuu yiri rag waxa ila daman nin bidaar leh waa sidee baa la yiri waa ninka garan waay xilliga timiisa la guray buu bidaar leh hadda nin hiira ku taal ma yaqaan xilliga timaha laga guray say u socoto asagoo banaan u bisar ka haya hadii la weydiyo gormaay timaan dhamaadeen ama laga guray garan ma ninkaas ila dam rag ila daman buu almuhim baashu waa ilaaj iyo daaweyn weeye marka haday timahaadi yihiin timaha lagu talaalayo dib ma laha khulaasado haday laakiin tima kale yihiin ama tima ruux kale yihiin ama cayn gari caws kale yihiin wax lagu talaalay waa xaraan labada suuro way aad la iskaga ilaaliyo